waxaa jiray arday Soomaali ah oo dalalkaasi wax ka barta gaar ahaan Ruushka ayaynu eegaynaa hase ahaatee dad badan ayaa isweydiinaya bal in dagaaladaasi halkaasi ka socda ay saameyn ku yeesheen ardadaasi wax ka barata magaalooyinka tirsan dalka Ruushka si aynu wax uga ogaano bal arrimahaasi ayaanu qadka telefoonka kula xiriirnay Dr. Mawlid Ahmed Farax oo baraka ah mid kamid ah jaamacadaha dalka Ruushka waxaana uu u waramay Foos Ciid oo weydiisay bal saameynta dagaaladaasi ay ku yeesheen ardada Soomaalida ah ee halka wax ka barta كلي دجال كحاجة كسر يكون وأكيد بس لكن روش كده حديث واحد بعطاه كمثلا هل كان كل هنا وحلا كبدينا بلكاريا مركا وشمولية كتير يبنى روشكا يبنى سوا كلام ما رتيه من دجال دمار روش كده حديث سنة واحد بعطاه كمثلا يوم saamaynta dagaalada ee waxbarashada Soomaalida wax saameynaha oo ay ku yeelatay ma jirtaa maya waddanka Ruushka si toos ah loo iman karaa ardayda way yimaadaan hadday markay doonayaan way ka bixi karaan marka ardayda iyo cid kale oo maaragtay waddanka ku noolba wax dhibaato ay ku haysaa ma jirto wax saameyn ah oo xagga dhaqaalaha ama nolosha ah oo ay idinku yeelatay dagaaladaasi ma jiraan كل سنة عالم كله ساميين أول سامي هذين دلالكم بس لكن روش كده حديثة دولة وحال بكور هيسا معيشتنا كانتروشات سنة فنادي دالك روش هو دالك كم من دالك وقوصة وحلصار كبدن مركا يسا هو دال سكوف فران أو إلا لابد كل يافر تون كيبا يسو ديارين يي مكي غاقواتين تالك على بسو الرغم يسو ديارين يسو فران هذا مركا روش كده حديثة وحمار تسامي وكرا وين إساقا كمالها سيدالوكا كرا يكو حدنا أساسارك الروش يجرين ده أيه صعبان كده بس والله حياة أرضية Soomaalida أرضية كانوا بيلموا جيسي مركا أنا أقول لهم كان شغال Soomaali شغال وأرضية ما ركتي حد قطع أرضية كلا نفس ما داري هدي تاني كنت بروح أقول له هندي إيو عرب بديه يروش قوة سلوي ما داري بسومالي ما ركتي أرضية يروي ما دان وحياة برتا مركا إيو إدي عن بمعنى تي هاي ضد دجال أو ما ركتي روش أو حاجة الله دري أنا هاي iyagu dalka way yimaadaan si caadi u dhex joogaan cid wax baraysan way bartaan marka magaca mooyaane dagaal mooyaane ruushka wax kala maaragtay saameyn oo uu ku leeyahay waxbarasho tahay iyo haday dalxiis tahayba ma jirto marka laga reebo dhinaca Ukraine xigto oo dhanka diyaaradaha maaragtay laga duwo ardayda markaasi dhinacyadaasi ku dhow Ukraine ee dagaalada ay ka dhacayaan ku sugan ma jiraan arday Soomaali ah oo saameyn halkaasi ay dagaalada ku yeesheen kulli xududka ruushka oo dhan waa meel ilaashan meesha la dhabil garad baa ugu dhow dhanka xuduud leh marka arday anigu horta ma maqal aaga joogto wax dhibaato ka soo gaareen ruushka lafteedana dee xuduudihiisa wax lagu soo ridaada ma jirto dhibanka kale qolada galbeedka taageertay Ukraine way kala hadlayaan ruushka wax maaragtay dhankiisa meesha kale isku hayo mooyaane dhanka ruushka wax dhibaato maaragtay xul urgin تدري إذا كان دبعته ما أرتيه كان كشيء أنا سأرتيه ما له ما أعرف كوروش كان سلوك له ما أعرف بعيد شيء سؤال اللي كان دبعه ولا كذا لكن لما رأينا بين يتحمل بدو ما شاء الله بدو على ما يو حالة بس كاتن Dr. Mawlid Ahmed oo markaasi barjaamacad ka ah dalka Ruushka oo Foos Ciid u warmayo kaasi ha dhageystayaal war degdeg oo haatan soo gaarayna